بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمنا والمسلمين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركو وهريس إلهي بمهد اسكاله إلهي مركا لنو سورتقليي أنو خيراتك إيو وناك اسكو شيغينو وحانو صوهيني موضوعين عوانكي سؤها مداخل الشيطان، meelaha uu shaydaanka uu ka soo galo bini'aadanka ayaan ka sheekaynaynay. waxaannu maraynay shaydaanka meelaha uu dadka ka soo galo, waxyaabaha ilaahay dadka u xalaal yeelay inaad iska xaaraam yeesho waa madaakhilu shaytaan. dadka marka islaamka waxa waaye jaahiligii waxyaabihii ay ku dhaqmaayeen markii laga soo sheekeeyey, qaarkooda markay soo islaameen baa waxay arkaayeen wax allaala wixii xalaal ahaa inay iska xaaraantilmaynayaan, inay ilaahay ugu dhowaanayaan ay u malaynaayeen. madaakhishaasi madkhal ka mid ayaa waxaa ku dhaca dad badan oo muslimiin ah oo waxa waaye dhallinyaro ah oo mukhlisiin ah oo diin ilaahay raba, yaa laga yaabaa inay waxyaabo badan oo ilaahay xalaal uga dhigay inay iska mamnuucaan. oo dadkii oo waxa waaye rasuulka gurigiisa soo booqday oo qof kastaba go'aan gaara qaatay, oo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalamna uu yidhi waxa waaye aniga intaas aad sheegaysaan cagsigeedaan ahay, waan ka duwanahay. waxa waaye taasi waa sunnadayda saxda adana waatan, faman raqiba can sunnatii falaysa minii. aniga qofkii sunnadayda naca aniga iga mid ma aha, ayuu rasuulkeena yidhi sala allahu calayhi wasalama. waxyaabaha rasuulkeena cunitaanka ah marku uu ka hadlaaye oo ka sheekaynaaye waan soo marnay. waxa waaye rasuulkeena wax allaala wixii loo keeno, ha yaraadeene ha badnaadeene, nooc kasta ha ahaadeene, si kasta ha ahaadeene, hadduu ishihaysto waa cunaayey. oo rasuulkeena waxaan aniga ma cuno, waxa waaye waxaasi ma dhahayn, waan ka caaganahay ma dhahaynin. taasi waa midda kale, nafta in la cadaabo oo qofka inuu wixii ilaahay u xalaal yeelay bimujarad oo waxa waaye wixii haddii uusan naftiisa rabin uu iska dhaafi karaa, qasab maaha. laakiin inuu waxa waaye ilaahay aan ugu dhowaanaya, waxa waaye xalaashii ayaa xaaraam iskaga dhigaya, ilaahay ugu dhowaanaya. taasi waa soo sheegnay inay xaaraam tahay oo mamnuuc tahay, oo rasuulkeennana uu ka sixi jiray asxaabtiisa qaar markay waxaasi ku dhacaan. ama mujaradu tacdiibi nafsi, qofka inuu ku talagalo naftaydan cadaabaya oo aan dhibaya, baddankayga dhibaya, min gayri manfacatin raajixatin, manfaca nacfi waxtar oo waxa waaye u soo noqonayan aan la arkin, falaysa haadaa mashruucan lana. annaga waxyaabihii shareecadeena noo jidaysay ka mid maaha. macnaha qofka bimujarad inuu iska yidhaahdo raashinkan xalaashaan iska dhaafaya, waxa waaye hilibkaan iska dhaafaya, kana iska dhaafaya, maxaan u yeelayaa? nafta ayaan cadaabaya oon dhibaya. kow, baddankaygan dhibayaan baabi'inaya. labo, waxaasna labadaas arrimood markuu qofka uu samaynayana oo manfaco u soo noqonayso oo asaga uu ku xisaabtamayana aan la arkin, manfaco la'aan uu jirkiisa iyo naftiisii inuu la dagaalamo keliya oo u sameeyo faa'iido kale u soo dhalanaysana aan jirin, sharcigeenna ma oggola. fahaadaa mashruucan lana falaysa haadaa mashruucan lana. wixii lanoo jideeyey ka mid baaha. bal amarana allaahu bimaa yanfacuna,
bal ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa wuxuu nagu amray wixii annaga na anfacayo oo wax noo taraaya wanahaanaa camaa yadurunaa shareecada waxay naga reebtay wax allaala wixiina dhibaaya ayay naga reebtay rasuulkeena sala allahu calayh wasalama xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi innamaa bucithtum haddaad ummadda nebi maxamed tihiin waxaa la idiin soo saaray oo ilaahay idinku talagalay muyasiriina inaad dadka wax u fududaynaysaan muyasiriin dadku wax u fududaynaya walan tubcathuu la idinma soo saarin mucasiriina inaad dadka wax ku cuslaysaan la idinma soo saarin xadiiskaasna waxa waaye wuxuu soo koobayaa wax allaala wixiina anfacayana waa lana amray wixiina dhibaayana waa lanaga reebay marka innamaa bucithtum muyasiriina adiga waxaa la rabaa inaad noqoto dadka wax u fududeeya dadka muyasiriin waxa waaye dadka wax u sahla u fududeeya inaad noqoto waxa waaye laguma ogola inaad dadka wax ku cuslayso oo ku adkayso laguma ogola diinta islaamka ma ogola markii oo fahamkii khaldamay dad badan oo muslimiin oo fahamkii ka khaldamay oo wixii saxda ahaa khalad u arkay wixii khaladkaana saxa u arkay ayaa waxaa dhacda qofkii diinta dadka u fududaynaya u sahlaaya waxa waaye in la yidhaahdo qofkan waa qof ebera waay qofkii mutashadid oo adag oo qallabsan oo muran badanna qofkan waa qof mutadayina waaye sunni waaye in la yidhaahdo waa khalad waaye faham xumi waaye waxaas marka rasuulkeen sal allahu alay wasalam uu yidhi innamaa bucithtum muyasiriin yusrigii oo rasuulka ammaanay in dadka lagu caayo cusrigii oo rasuulka ceebeeyey oo dad lagu ammaanana waxa waaye taasna wax jira maa faham xumo waaye fahamkii ayaa waxa waaye ayaa gadoomay waxa waaye madax ayuu ku socdaa fahamkii intuu khaldamay lugaha in lagu socday ahayd madax ayaa lagu socdaa markaasa waxaad arkaysaa dadka diinta dadka u fududaynaya u sahlaaya si sahla dadka wax ugu sheegaaya in la dhaleeceeyo oo wax laga sheego oo waxa waaye dadkaani waxa waaye mutasaahiliin waaye in la yidhaahdo diintay fududaysanayaan la yidhaahdo oo magac laga bedelo kuwii oo mutashadidiinta ahaa oo qallabsanaana in la ammaano waxa waaye fahamkii khaldamay waaye marka xadiiskaasaad ka arkaysaa innamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi iyo abuu muusa alcashcari wuxuu ku yidhi rasuulka sal allahu alay wasalama lamaa bacathahumaa ila alyamani xagga yaman markuu u diraayey wuxuu rasuulkeena ku yidhi yasiraa dadka diinta u fududeeya macaamiladiina macaamilo fudud ha ahaato walaa tucasiraa dadka macaamilada iyo diinta ha ku cuslaynina wabashiraa dadka ugu bishaareeya janno iyo khayr iyo wanaag u sheega walaa tunafiraa dadka ha eryina diinta ha ka erinina waxa waaye dadka oo munafiriin ah oo dadka diinta ka erya oo dadka macaamiladooda lagaga cararo ha noqonina saasuu rasuulkeena sal allahu alay wasalam maanta waxa waaye bilcagsi ayay xaaladdu isku bedeshay fahamkaasi khaldamayn inaan saxno waaye qof kastaba inaan lagu taageerin qof fahamkiisa khaldan inaan lagu taageerin war sax ma ahan in la yidhaahdo in runta laysu sheego waaye taasna waa mid waaye wa qaala rasuulkeena wuxuu yidhi haada addiinu yusrun tani diintaani way fududahay walan yushaadda diina axadun qof diinta isku adkeeya ma jiro ilaa halabahu waxa waaye uu ka qaalib noqonaya asagaa baaba'aya diintu way soconaysaa fastaciinuu waxaad kaalmaysataan bilghadwati kalahitaanka wakhti fiican waalrawxati carraawitaanka iyo wa shay-un min addulja saacadaha habeenka saacado ka midana ka faa'iidaysta qasda tabluguu qasadka dhexdhexaad ku socda meeshii loogu talagalay fiicneed ayaad gaaraysaane bal fiiri xadiiskan waxa soo u kooban yahay marka waxaa la yidhaahdaa qof diinta isku adkaynaya ma arkaysid ilaa waxa waaye waa ka gadoomaya waaba ka baxayaaba dad badan oo mutashadidiin ahaa oo diinta dadku ku adkayn jiray oo waxa waaye xadgudub ahaa xagjir ahaa bilcagsi ay noqdeen oo diintii la dagaalamaya ayaa la arkay inna haada addiinu yusrun waxa waaye diintu way sahlan tahay walan yushaadda diina axadun qof diinta isku adkeeya ma jiro ilaa halabahu uu ka qaalib noqonaya waxa waaye diintii ayaa raynaysaa isaga ayaa waxa waaye dhulku ku dhacaya fastaciinuu marka idinka kaalmaysta wakhti kasta maaha bilghadwati gelinka hore waa salaadii faradka waa salaadii bilghadwati iyo walrawxati soo caraabitaanka waxa waaye duurka iyo casarkii waaye wa shay-un min addulja habeenka saacadihiisa saacado ka mid a maqhribka cishaha waaye
waa laysku darayba wa shay-un min addulja maqribkii cishihii waa laysku daray waa waaye alqasda qasda tabluqu dhexdhexaysta oo dhexdhexaysta in yar u socda tabluqu waad gaaraysaane waxaa lagu miithaaliyay qofka musaafirka ah oo meel dheer u socda gaadiidkiisii asaga si ay meeshii rabaan ay u gaaraan oo ayagoon rafaadin oo dhibna marin ay meeshooda gaaraan taas ayaa waxa waaye waxa uu soconayaa qofka musaafirka ah habeenka waxa waaye ayuu soconayaa subaxii maxaan ku rahda aroortii ayuu soconayaa gelinka dambe casarkii ayuu soconayaa wuu nasanayaa duhuradii iyo kuleeladii waa soconayaa mantaa qoraxda soo kululaanin subaxii u soconayaa gaadiidkiisii wuu furanayaa meel buu iska degayaa casarkii qabowgii ayuu soconayaa waxa waaye markii maqribkii waxa waaye qaar ka mida ayuu soconayaa ilaa cishaha waqti haddana wuu seexanayaa wuu nasanayaa in yarkaasuu u soconayaa meeshuu rabayna wuu gaarayaa cibaadadana waa saas waaye dhaqanka iyo mucaamiladana saas waaye tartiibtaasi waaye step by step kaasaa lagu wadaaya amaa taxriimu taasi waxay ahayd waxyaabaha qofka inuu wax ilaahay xalaal uga dhigay waxa waaye inuu iska xaaraantinimeeyo ilaahay aan ugu dhowaana yidhaahdo daaqadaa laga tuuray naftaydan cadaabaya ma xaaraantinimaynaya laakiin naftaydan dhibaaya faa'iido u soo noqonaysana aan la arkin waxa waaye taasna daaqadaa laga tuuray midda kale waxa waaye amaa wixii ilaahay xalaal yeelay taxriima maa axalla allaahu bicudurin waa yahay bicudurin mujaahadati nafsi fa hada laysa min alxanafiyati alsamxa bishayin wa huwa aqrabu ila alruhbaaniyati walaa ruhbaaniyata fi lislaami ama taxriimu maa axalla allaahu inuu qofka iska xaaraam yeelo wixii ilaahay u xalaal yeelay waxa waaye wixii ilaahay taxriima maa axalla allaahu wax ilaahay xalaal ka dhigay ayuu iska xaaraam yeelayaa bicudurin cudurdaar ayuu sheegayaa mujaahadatu nafsi nafta ayaan la jihaadaya u naftaani ayaan dhibayaan la jihaadaya mujaahadatu nafsi darteedii ayaa waxaan xaaraam iskaga dhigayaa wax ilaahay ii xalaal yeelay ayuu yidhi fa haadaa laysa min alxanafiyati samxa diinta samxada oo diinta xanafiyada ah oo toosan oo samxaga oo samaaxada badan ka mid ma aha bishayin wax meel ay ka haysataa ma la arko wa huwa kaasina aqrabu waxay u dhowdahay ila aruhbaaniyati suufininay u dhowdahay ruhbaaniyo walaa ruhbaaniyata fi lislaami waxa waaye ruhbaaniyo islaamka dhexdiisana lama ogola walaa ruhbaaniyata fi lislaam suufinimada waxa waaye waxaa laga wadaa dadka qofka intuu dadka ka dhex baxo oo waxa waaye meel uu galo oo dadka ka go'o waxa waaye wixii ilaahay xaaraam ka dhigay wixii ilaahay xalaal ka dhigay wax iska xaaraam yeelo naftan la jihaada uu dhaho waxa waaye ruhbaaniya la yidhahdaa waxa waaye suufinimaa la yidhaahdaa suufinimadan oo dadkan culimadii hore oo magaca suufiyo waa leeyahay oo lagu ceebaynayo maaha suufinimo qofka dadkii ka go'ay waaye islaamkana waxa waaye taas ma ogola wa huwa madkhalun min almadaakhili ashaytaani shaydaanka meelaha uu dadka ka soo galayo meel ka mid ah waaye falyaxdiruuhu waa yahay jamhuuru ducaati ka digtoonaada ducaaddiina dadka diinta ilaahay dadka ugu yeeraya kuwii hore mutashadidiintiina waa la soo diiday waa lala soo dagaalamay kuwii mutadarrifiinta ahaa waxa waaye tadarrufka sidiisaba waa xagjir waaye waxa waaye kii kalena xaggaasuu maray kuwan hadda aan sheegayna dhinac kaley mareen marka waxa waaye xagjir baa layidhaha mutadarrifiin diinteenna waxa mutadarrif la yidhahda ma ogola waxa waaye dhexdhexaadkaasay rabtaa wasad waaye dhexdaas ayaa badbaadaa laakiin ama darafka qofkii joogo darafkaasi geeskaasi khatar wuxuu u yahay inuu dhinaca u dhaco darafka kale kan joogana wuxuu khatar ku yahay inuu xagga u dhaco marka waxa waaye walaa ruhbaaniyata fi lislaami wax ruhbaaniye la yidhahdo islaamka ma qabo waaya meelaha shaydaanka uu dadku uu ka soo galaayo waaye ilaahay aa ugu dhowaanaysa hilibka xaaraan waaye iska xaaraam yeel kan wax dhan xaaraam waaye kan xaaraan waaye kan xaaraan waaye waxa waaye taasna meelaha uu shaydaanka dadka ka soo galaayo waaye marka dadka inay ka digtoonaadaan waxa waaye ayaa la rabaa jamhuuru ducaati inay ka digtoonaadaan qaybta kalena gharsul ya'si madaakhisha shaydaanka meelaha uu dadka ka soo galayo waxaa ka mid ah gharsu ya'si waxyaabaha quusta la yidhaahdo ayuu tallaalayaa sida geedka oo kale ayuu wuxuu u tallaalayaa ya'siga quursashada qaala cali ibnu talxa ibnu cabbaas wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi
nazala annabiyu nabiga ayaa degay sala allahu calayhi wasalama xiina saara ilaa badrin marku uu beder dagaalkii beder uu u socday ayaa rasuulkeena ayuu degay waalmushrikuuna baynahum wa bayna almaa'i asaga iyo mushrikiinta dhexdoodana waxaa yaalla ceel biyo waxaa bayna maa'in ramlatin wa casatin wa asaaba almuslimuuna dacfun shadiid muslimiintana waxaa ku dhacay dacfi oo way soo daaleen wa alqa ashaydaanu fii quluubihim alghayda shaydaan baa waswaas wuxuu ku riday qalbigooda mu'miniinta ayagoo daalan gaaladii iyo ayaga dhexdoodana biyaa yaalla marka shaydaan marka wuxuu rabaa inuu ka faa'iidaysto meeshaasi duruuftaasi saxaabada ay ku jireen inuu quluubtooda caro geliyo inay caroodaan yuwaswisu baynahum dhexdooda ayuu waswaas ku shubay waayahay tazcumuuna wuxuu ku leeyahay waa ka ya'siga raba inuu ku abuuro waa ka tazcumuuna muslimiin haddaad tihiin waxaad ku andacoonaysaan annakum awliyaa'ullaahi inaad ilaahay owliyadiisa aad tihiin ayaad ku andacoonayseen wa fiikum rasuuluhu rasuulkii asaga ilaahay soo dirsadayna inuu idin dhex joogo ayaa sheeganayseen waqad galabakum almushrikuuna cani ilmaa gaaladii mushrikiintana waxay idinkaga hormareen biihi wa antum tusalluuna mujnibiina idinkana waxaad dukanaysaan idinkoo janaabo qaba biyana ma haysataan waad daalan tihiin janaaba idinku dhacday idinkoo janaabo qaba waxaad ku qabaysataan aan la arkin ayaad dukanaysaan cadowgiina biyuhu idinka qaatay ilaahayna awliyadiisaa nahay baad leedihiin rasuulkiisana waa nala socdaa leedihiin bal ka warrama fa amtara allaahu ya'sigaasi asagoo rabo inuu shaydaan saxaabada uu ku rido fa amtara allaahu calayhim ilaahay baa ku soo shubay mataran shadiidan roob daran fa shariba almuslimuuna muslimiintii roobkii biyihii bay ka cabbeen wa tatahharuu way ku qabaysteen wa adhaba canhum rijsha shaydaani ilaahayna wuxuu ka baabi'iyey oo ka tirtiray shaydaanka waswaaskiisii iyo qurunkiisii ayuu ilaahay ka saaray taasna waa mid waay yaquulu lahum wuxuu ku leeyahy shaydaan meesha ya'siga uu qofka uu ka soo gelinayo waayo wa antum tusalluuna mujribiina idinkama waxaad dukanaysaan idinkoo janaabo qaba wa mataa kaana alcaduwu naasixan waxwa wax lala yaabee cadowga goormuu noqday mid kuu naseexaynaya cadow goormuu naasix noqday cadow goormuu ficnaaday wa mataa kaana alcaduwu naasixan cadowga goormuu isku beddelay qof naasixa oo kula talinaya innamaa huwa daalika takhtiitu shaydaani taasi waxay ka mid tahay qurshaha ama baleenka shaydaanka qurshihiisa way ka mid tahay takhtiidkiisii macnaha qurshihiisa waxay uga mid noqotay ligarsi daalika alya'as in uu abuuro ya'sigaasi ama quursasho inuu abuuro fii quluubi casabati alxaqi kooxdaani xaqa wadata quluubtooda inuu ya'si ku rido ayuu rabaa wa min alطabiiciy sida طabiiciga oo caadiga ah annahu yadkhulu ilayhi min dalika almadkhal aliimaani likay yashala calayhi garsu اlya'si waanlaa iktashafuuhu wayanzila calayhi min aلsamaa wa min alطabiiciy waxyaabaha طabiiciga iska caadiga annahu shaydaan yadkhulu ilayhim uu ka soo galaya min dalika almadkhal meeshaas ayuu ka soo galaya almadkhalu aliimaani madkhalka meesha iimaanka laga soo galo likay yashala calayhi say ugu fududaato xagga iimaankii wuxuu ka soo galaa sida dabiiciga ah oo waxyaabaha asaga ma muuqanayo marada iskama soo dhigaya isagoo qaawan kuuma imaanayo shaydaan sida dabiici ah ayuu kula hadlayaa meelaha uu kaa soo galaayo rumaysanaantaaduu shaki gelinaya ilaahay aad rumaysan tahay si ay ugu sahlanaato ya'siga iyo quusashada uu rabo inuu dadka uu ku abuuro wa allaa iktashafuuhu wa allaa iktashafuuhu inaysan ya'sigaasi inuusan qofka uusan meelihii uu ka soo galayo ceebtiisa bannaanka isma soo dhigaayo wa yanzilu calaykum min asamaa wa yunazilu calaykum min asamaa'i maa'an ilaahay baa biyo idiin soo dejinaya wa yunazilu fiiri saxaabada ayaa roobka lagu soo dejiyey
وحواي روبا لوسو دجي لما دهن وحواي فعل مضارع فعل كمضارعة فعل هدور دعايو وحلو كلا قيبيا فعل مضارع إيو فعل أمر إيو فعل ماضي وحي تغي فعل ماضي واي وحواي الصحابة أيا روب كان لوسو دجي فعل ماضي إنو أهادو ماشي كل ما هذا الربي ما دعين وحواي ولي وحواي فعل مضارع أيا الاستعمال وينزل إلهي وحو سود جنايا حدا وسود جنايا فعل كمضارع حالة مستقبل وكتسايا وحواي مرك حدا ربكو إلهي إذن كسود جنايا مستقبل كان إلهي ساسود إذن كسود جنايا واي مرك الشيطان إذن وسواسيو وينزل عليكم إلهي كركي وحو كسود جنايا من السماء حق علكة ما أنبيو ليطهركم به إنو إلهي إذن كطاهريو وإذن كنظيفيو قلبكينا وسواسك لغا سارو وحواي جنابة الذين كطاهريو ويذهب عنكم الرجس رجس الشيطان كرجس يقرن كيس وحسودا إلا إذن كترترو وليربط على قلوبكم قلوبتين إنو إلهي حرو قلوبتين أو وسواسك لقلي أو دبعدي إن لدوجيو وليربط على قلوبكم قلوبتين إن سفي عن لو حرو لو دوجيو ويثبت به الأقدام لوهينا نقولك إن لغسوه oo aydan cararin oo meesha bacaadka la idin dhajiyo ileen bacaadka roobka markuu ku da'o uu dhigaya dhul caadi u noqonaya taasina kullu hazimatin la budda wa an yastabiqaha hazimatan nafsiyya fi qulubi almuqatilina عندئذ لا يكون للصلاح قيمة ولو لاها لأصبح النصر متعذرا لكان الجانبين لكلا الجانبين وكل هزيمة جب كستا قف كستا مركو جبايو وكل هزيمة جب كستا وحواي قول درك كستا لابد وحا لغا مارمانا قف كمركو قول دريستو وحا لغا مارمانا وأن يستبقها هزيمة نفسية جب يقول درو وحق النفتا إني كهر مرتوان قف كمركو جبايو معركة كو جبايو وحواي دقال او كجر او كقول درسانايو dagaalka oo shaydaan oo kula jiro oo ka guul darsanayo xagga naftiisa markay niyo jab ku dhaco markaasuu jabaya marka wa kullu hazimatin wa qaacido guud waay wa kullu hazimatin jab kastaba hazimada waa guul darsi waay oo ina soo jabto dagaalka ina ku soo jabto hazima kasta waxa laabud ah wa an yastabiqaha wa inuu ka hormara hazima nafsiya qofka ina dadka muqaatiliinta oo dagaalamaya oo jihaadka ku jira waxa waay hazima nafsa waa inay ku dhacdaa ayaa waxa waay hazimada goobta lagu jabo tan nafta ka horeysa inda idin markii qofka hazimatu nafsi ay ku dhacdo la yakunu lisilaahi hubka man noqonayo qiima hubka aad ku raran tahay wax qiimo u yeelanaya ma jiro walow laaha haduusan jirin la asbaha an-nasru nasriga iyo guusha wuxuu noqon lahaa mutacadiran مد عذر دوبة لكلا الجانبين لبدا جانبه هذا وقد حاول الشيطان أرن كان الشيطان وحو اسكديي أن يلقى إنو كردو في قلوب أهل بدر صحابة بدر كقيب جلس قلوب تودا إنو كردو وحواي يأس إنو كردو هزيمة النفس إنو كردو قبل لقائهم بعدوهم عدو ذا انت إيسان لكل من ayaa waxa waaye inuu hazimatu nafs inuu ku rido wuxuu ka soo bilaabay waxa waaye maxaan ku iraahdaa ilaahayaan awliyadiisa nahay rasuulka ilaahay baa nala socda waxa waaye saanaan nahay kanaan nahay xagga iimaankii shaki ka gelinaya markii xagga iimaankooda ayagoo ka shakisan niyadooda ay waxa waaye niyad jabna uu ku dhacay hadday cadowga isku hor imaadaan inay jabaan buu rabaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas ayuu iskugu soo xiray marka qofka hazimatu nafsi markay ku dhacdo hubka uu ku raran yahay wax qiimo u yeelanaya ma leh waxa waaye haddii kale haddaysan taas jiri lahayn nasriga mutacadir buu noqon lahaa mid cudurtooba likila jaanibayni sidaas darteeda shaydaan marka wuxuu isku dayay inuu dadkii ahlu badar ahaa saxaabadii ahlu badar ka qayb gashay inuu quluubtooda ku rido absidaas iyo walwalkaas iyo niyadjabka inuu ku rido qabla liqaa'ihim bicaduwihim intaysan cadowgooda iska hor imaanin taasna waa mid waay waqad yalqaa fii nufuusi bacdi ducaati mar walba inaan darsi ka qaadano waay
waqad yalqaa wuxuu ku ridaaya wuxuu la kulmaya fii nufuusi bacdi ducaadi kayfa tantasiru waaljaahiliyatu tamliku maa tamliku wa asxaabu alxaqi qaliiluun waxa waaye waqad yalqaa waxaa la arkaa inuu la kulmo fii nufuusi bacdi ducaad dadka ducaadda diinta ilaahay dadka gaarsiinaya nufuustooda qaar inuu la kulmo kayfa tantasiruuna waxaan oo kale dadka ducaadda ah inay la kulmaan baa laga yaabaa kayfa tantasiruuna seed u guulaysanaysaan marka waaljaahiliyatu jaahiliyadii islaam la'aantana tamliku ay milkisay maa tamliku waxay milkisayna ay milkisay macnaha dadkii jaahiliga oo islaam la'aantana awood fara badan bay haystaan idinkana seed ku guulaysanaysaan waxa waaye haddii waxaana la idinku soo rido ya'sigaan la idinku soo rido quursashadan la idinku soo rido seed ku guulaysanaysaan dadkii gaaladana oo mise jaahiligana kuwa islaam la'aanta aha idinka soo horjeedayna wixii aad aragtay diyaargarow ay haystaan wa asxaabuulxaqi qaliiluun dadka xaqa haystana ay yar yihiin qaliiluun ay yihiin dad yar oo tiradoodana ay yar tahay tayadoona ay yar tahay niijabnu haddana hadda ugu darsamay cadowgoodana uu xoog badan yahay say u guulaysanayaan waay maadaama ay dad yar yihiin waqad marat sanawaatun waxaa soo martay sanooyin walam yaxdud takhyiir waxa waaye sannado fara badan ayaa jira oo wax isbeddelna aan imaanayn sannado fara badan baan joognaa oo isbeddelna aan la arkaynin ayaana soo martay wa kullamaa kharajadtum min asujuuni cudtatum ilayha waxaa la yidhahdaa wa kullamaa kharajtum marka aad ka soo baxdaan min asujuuni xabsiyada markii la idinka soo saaro wakhtigiin aad dhammaysataan cudtum ilayha haddana waa laidinku celinayaa meeshaasun baa la taagan yahay ilaa mataa haadihi waxa waaye ghariiba gurba haada alya'as ilaa mataa haadihi algurba ilaa goormaa gurbadan lagu jiraaya haada alya'su min annasri haadaa kani ya'sun macnaha waxaa laga wadaa dadka muslimiinta ah waxaa laga yaabaa in ay la kulmaan ya'sigaasi yaa laga yaabaa inuu soo galo ya'siga meesha uga imaanaya lagu tusaayaa sideed u guulaysanaysaa dadkii islaamka ka soo horjeedayna tiradoodana ay idinka badan tahay tayadoodana idinka badan tahay waxa waaye idinkana aad yar tihiin tiradiinan ay yar tahay tayadiina ay yar tahay waxa waaye wuxuu shayddaan idinku akhrinayaa waxa waaye sannado fara badan baad joogtaan oo dacwo iyo khayr iyo wanaag ka shaqaynaysaan wax isbeddelna waa la idinka la'yahay waxa waaye xabsigaa laydinka soo saarayaa markaad dhammaysataan haddana waa laydinku celinayaa goormaa waxa waaye gurbadaani waxa waaye goormaa dhibaatadaani oo ilaa goormaa dhibaatadan ay sii soconaysaa ayuu shayddaan kugu akhrinayaa haada alya'su min annasri yadcuu dalika addaaciya litahwiiri wa tasarufi alfardi maa yasnacu addacwatu fii mawdicin baaliqi alkhutuura dalika ina dacwata kunaha alsafiina alatii takallama canha rasuulahi sala allahu alayh wasalama ya'sigaasi ayuu dadku ku soo ridaa wa haada alya'su min annasri ya'sigaani quursashadaani oo nasriga ilaahay guushi ilaahay laga quursaday yadcuu daalika daaciya qofka daaciyaha wuxuu ugu yeeraa guuldaradaasi waay waxa waaye ya'sigaasi wuxuu ugu yeerayaa oo nasrigii uu dib dhacay qofka daaciyaha litahuura inuu niyo jabo wa tasaruf alfardi inuu markii dambe uu la yimaado tasaruf fardi oo waxa waaye keligiisa wax uu iska sameeyo maa yadacu dacwa mima yadacu dacwata fii mawdicin baaliqin khatiir laga yaabaa qofkii marka intaan ya'si ah waswaas ah oo lagu rido goormay maxaan ku raha isbeddel goormaa la gaari doonaa waxa waaye xabsiyaa lagu jiraa ducaadii xabsiyaa lagu guray haddii xabsigii ay soo dhammaystaan haddana waa lagu celinayaa goormuu nasri imaanayaa ya'sigii nasrigii laga quursaday wuxuu ku abuurayaa dadka qaar inay tasarruf fardi ay sameeyaan keligooda maxaa waaye sharci gacantooda ay ku qaataan waxa waaye inay sameeyaan waxa waaye waxyaabo oo dacwada inay geeyaan meel oo waxa waaye aad u xeldheer khatarteedan aad u badan tahay inay geeyaan meel fog inay sii geeyaan oo dheereeyaan dalika lianna dacwata kaannaha assafiina
ذلك كاس لأن دعوة إيه دين إله ذلك لجارسينايا كأنها سفينة ودون أو كلوا دون أدي أسارنت هاي التي تكلم عنها رسولك إلهي وكهر لي صلى الله عليه وسلم وهو تيسير في المحيطات الجاهلية العميقة وهو دون تاسي رسولك كهر صلى الله عليه وسلم كأنها سفينة التي تكلم عنها رسول صلى الله عليه وسلم وهو تصير دون تاسي ويسعنيسا في محيطات الجاهلية حيبها أما محيطات الجاهلية كسعنيسا العميقة أو حيل دير وعليها عصبة الحق دون تاسين وحا سارا كوح أو حق كسر كوح أهل حق يا سارا فإن أخطأ أحدهم كي دون تاسي من أي كمدة هدو قفو وأراد أن يثقب ثقبا قف أي كمدة إنو دونت الدليلية هدو ربو في أسفل السفينة دونت هوس إنو كدليلية الواح كبحيو هدو ربو ليحصل على الماء سيء بيها أهله بسرعة صدق ساعة وياها يوفر عليه محنقرا إنو هلو وقت السعودي وحوايه ليوفر عليه وقت السعودي وقت محنقرا فولتانك إلى الأعلى دبق القرى إن لفوله وهو جلب الماء بها ساس لغسوقاته كما يظن غرق وحوايه كما يظن غرق وغرقوا جميعا هذه الكارثة كلها تكون بسبب ذلك تصرف الفرد من أحد أفراد الدعوة رسولك صلى الله عليه وسلم وحوايه ددك أو يأسي كدعه أو تصرف فرد انت الإمادان دعوذي وحوايه ميل خطر أي جيان أو سيء ديريان رسولك أنا وحو كتل مامي دعوة داسي سفينة أما الدون أو لبا دبقة أيو كتل مامي ورسولك أنا نغهضي سفينة دونتي ويسعتا وحواي محيطات كذا يكسعتا محيطات الجاهلية يكسعتا مال جاهلية أو العميقة جاهلية أو آد عميقة أو قطر أي كسعتا معنا مول وعليها عصبة الحق دونت نوحا سارا كوح أو مؤمنين أو حق كسعتا قف أيها كمدة هاي دونتي لو ساريها ولا صعدا qof ayaga kamida ayaa wuxuu dhibsaday intuu dabaq kore intuu fuulo oo waxa waaye bihi oo wadaantiis kor ka soo rito bihi meesha ka soo qaato dhibsaday waxa waaye si sahla wuxuu rabaa inuu bihi uu helo bihi maadaama asagu u dhow yahay hoosna u joogo hal alwaax intuu ka bixiyo bihi meesha uu ka qaato marka taas ayuu rasuulkeena ku miisaaliyay fa in aqta ahaduhum qof ayaga kamida haduu qalad sameeyo oo araada an yathqiba thaqban fi asfali safina oo uu rabo inuu meesha uu ka jibiyo oo ka siibo god inuu ka samaysto safiina doonta hoosteedii alwaax kala baxo si oo biyaha si degdeg u helo maxay biyi kor markuu fuulo waqtiga ka qaadanaysa degdeg buu rabaa inuu mirihii goosto raba biyi inuu soo qaato waaya liyufira calayhi inuu waafir u helo biyi badan waqtu sucuudi waqtiga fuulitaanka ilaa aclaa meesha kore oo wajalb almaa'i biha uu soo jiito kama yadhunnu وهي كما يظن غرق محنقر هذا غرق وما شود واي وغرقوا جميعا طمان توضر وما شوبيان أو قد كي يكون عيان هذه الكارثة كلها تكون بسبب ذلك تصرف الفردي كارثة هي مصيبة هي إني دتك دونتي لو دكتو وإسلامك أردن سلك لو سيبو محيكو إيماني سامرك بسبب ذلك تصرف الفردي قفكاس فردي أو شرعي قاعد تسققاتي من إحدى الأفراد الدعوة ذاتك دعوة وحواي محنكر هذا كسعة قف كمذا الذي وضع إبليس اليأس في قلبه إبليس أيا وحو كردي قلبي يأسي ويوحو كردي يقورس شا يكردي نفوس تقار أو يأسي محنكر قورس شا كدعدي ماشاس أيان كسي ودي دونا ضد بدن أيا يأس انتو كدعو أيا طلابوين أن فعنان انتي قادان dacwadii meeshii ay joogtay bay 10 sano iyo 20 sano dib u dhigayaan marka taasna miisaal ayaa la nasiinayaa qaybtaan halkaan ayaan ku joojinaynaa ilaahay hana u anfaco hada wabillahi tawfiiq wallahu ala ma aqulu wakiil wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh